السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا شرفت له سود وهذا مقعي إلياس عبد القادر waxaan joogaa dalka Hindiya waxaan ka bartaa maadada engineering-ka soo dhawaada dhamaantiin fiidiyogan waxaan u qaybin doonaa 5 qaybood qaybta koowaad waxaan kaga hadlaynaa macluumaad ku saabsan dalkan Hindiya dalka Hindiya ayaa ah dal dhaca koonfurta Asia ayadoo xuduud u leeyahay dalalka kala ah China, Nepal, Bhutan, Pakistan, Bangladesh, Myanmar iyo Sri Lanka. sidoo kale dalkan ayaa ah dal looga hadlo luqado aad u badan ayadoo ay tahay luqadda officialka ah laba luqadood luqadda Hindiga iyo luqadda Englishka. sidoo kale population-ka dalkan ayaa lagu tiriyaa kuwo kor u dhaafaya 1.3 billion people ayadoo uu yahay dalka labaad ee ugu bulshada badan caalamka iyadoo uu noqon doono 2050ka dalka koobaad ee ugu bulshada badan caalamka qaybta labaad waxaan uga hadli doonaa waxbarashada dalkan Hindiya dalkan ayaa ah dal waxbarashadiisu aad ay raqiis u tahay ayadoo maadooyinka artiska ah ay ardaydu ku dhigato ugu badnaan $600 sanadkii halka qaybta engineering-ka iyo IT-ga ay ardaydu ku dhigtaan $1200 ilaa $2500 sidoo kale positive side-ka waxbarashada dalkan waxa kamid ah ayadoo ay shahaadada dalkan tahay mid muctarifa lagana aqoonsan yahay caalamka oo dhan xataa hadii waqtigan xaadirka la joogo aan fiirino agaasimaha shirkadda Microsoft waa nin Hindi ah una dhashay dalka Hindiya sidoo kale agaasimaha shirkadda Adobe waa Hindi ka soo jeeda dalka Hindiya taasina waxay cadeynaysaa waxbarashada dalkan iyo tayadeeda sidoo kale positive side-ka waxbarashada dalkan waxa kamid ah hadii uu ardaygu yahay arday baranaya IT-ga iyo engineering-ka dalkan waa mid aad ugu fiican haddii aan ka hadalno negative side-ka waxbarashada dalkan waxa kamid ah mas'alada luqadda ayadoo ardaygu sanadka koobaad ay ku adkaanayso inuu fahmo classka iyo macalinkiisu wax u sharaxayo sida badan ardayda dalkan waxay sameeyaan sanadka koobaad waxay dhigtaan luqadda Englishka qaarkood luqadda Hindiga kaba si fiican ardaygu waxa u fududaanaysa in hadii uu sanad luqadda si dhigto in ma garanaysa arintaas oo xal u helo arinta mas'alada luqadda Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. qaybta saddexaad ayaan uga hadlaynaa maciishada iyo nolosha dalkan dalkan ayaa ah mid aad u raqiis ah ayadoo ardayga ay ku filan tahay bishii $200 ilaa $150 sidoo kale cimilada dalkan ayaa ah mid la mid ah cimiladii dalkeennii Soomaaliyeed ayadoo ay uu ka kooban yahay sanadku 4 xilli gu dayr xagaa iyo jiilaan You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose.
qaybta afraad ayaan uga hadlaynaa qaabka aad ku imaan karto dalka iyo sida aad ku apply gareyn karto jaamacadaheeda. Marka hore waxaad apply gareynaysaa jaamacadda adoo u dirsanayo qof jooga dalkaas. Qofkaas wuxuu kuu soo saarayaa admission ama offer letter wax loo yaqaano, iyadoo markaas wixii intaa ka dambeeya aad raadsanayso fiisadii dalka ama Nairobi waa laga helaa ama meeshii kale oo kuu fudud aad ka heli karto. qaybta shanaad oo u dambeysa waxaan uga hadlaynaa what to expect in India. maxaa ka filan kartaa dalkan runtii waxbarashadu waa mid aad challenge u ah, laakiin ardayga waxa looga baahan yahay inuu dadaalo, naftiisa ku kalsoonaado. imtixaanaadku ma yara oo imtixaanaadku waa badan yihiin. haddii aad wadankaaga ka soo tagayso, ogow waxa waaye mas'uuliyad baa ku saaran, naftaada ka saaran. waa arrin challenge ah. runtii alxamdulillah arday badan waxa waaye Ilaahay waa u fududeeyay, dad badanna challenge waa ku jiraan. ugu dambeyn aad baa u mahadsantihiin daawashadiina dhammaantiin. magacaygu waa Ilyas Cabdiqaadir Cabdille. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.